السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كلا وأنو كجا هذلينا doorashada soo socota 31 May iyo xubinta baarlamaanku faa'iidada ay ugu fadhido deegaan ahaan iyo gobol ahaanba marka loo tartamayo awood qaybsiga wadanka 82 xildhibaan ee baarlamaanku waa awoodda sharci dejinta wadanka ugu sareysa waxay deegaan iyo gobol ahaanba u leeyihiin iyo dad ahaanba muhiimad gaar ah haddaba sidaa la wada socotaan 31 May Somaliland waxa ka dhacaysa doorashadii ugu adkayd oo isku sidkan oo ah xildhibaan golaha deegaanka iyo mid golaha baarlamaanka waa markii horeysay ay ka dhacdo doorasho noocan ah waa markii horeysay Somaliland iyadu lacagta jeebkeeda ka bixinayso ay Somaliland iyadu iskeedu soo maamulayso doorashada waxa ku tartamay 3 xisbi kulmiye wicidiye wadani 3 xisbi tartanka ugu weyn ee dhaxmaraya wuxuu yahay in loo tartamo aqlabiyada ugu sareysa ee hay'adda sharci dejinta baarlamaanka oo ay doonayeen micnaheedu tahay inuu xisbi waliba helo 42 xildhibaan aqlabiyada baarlamaanka taas oo masharaxa ku qabanayo hoggaanka baarlamaanka amaba shirgudoonka golaha wakiilada 5 sano ee soo socda baarlamaanka waxa horta la hawl culus baa sugaysa amaba guudka ka saaran saw sharcigu dhigayo haddaba maanta bal waxaynu falaqaynaynaa waa kuma waa Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin Tuubaag oo calaamadiisu tahay tooshka oo ka sharaxan gobolka Saaxil oo ka tartamaya xisbiga kulmiye oo uu kulamaan yahay Axmed Carab Muuse murashaxa golaha deegaanka haddaba waxaanu doonaynaa inaan isweydiino waa maxay sumcadda iyo waaya aragnimada uu leeyahay Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin horta runtii barnaamij fara badan ka soo gudbinay waa aqoon-yahan dhalinyaro wax badan u soo qabtay deegaanka Saaxil ee uu ka sharaxan yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin waa nin dhalinyaro aqoon-yahan ku safoobay aqoon-yahan waliba waxba ku sifoobay wuxuu ku sifoobay samafalnimada iyo u adeegidda dadka danyarta ee ku nool gobolka Saaxil iyo degmooyinkiisa Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin wuxuu qoday riigag wuxuu diyaariyay iskuulo wuxuu diyaariyay goobo waxbarasho wuxuu qabtay goobo caafimaad saan horeba idinku soo gudbiyay haddaba Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin Tuubaag oo saan idin sheegay astaantiisu tahay tooshka waxa uu ka tartamaya saan idin sheegay xisbiga kulmiye idinku halkan taariikhdiisa iyo wax walba kala socon jiray oo aan halkan idinku soo bandhigi jirnay Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin mar labaad iyo mar saddexaad ba wuxuu 31 May uga fadhiyaa dadweynaha reer Saaxil meel kasta oo ay joogaan qof kasta oo kaarka haysta oo muwaadin ah waxa uu ka codsanayaa inuu ku taageero codkiisa 31 May suu ugu fadhiisto kursiga xubinka baarlamaanka isagoo metelaya gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin wuxuu gobolka Saaxil u ballan qaadaya sidoo horeba qudbadiisa ku aragteen inuu u hadlo gobolka Saaxil inuu u doodo xuquuqda gobolka Saaxil inuu xuquuqda ay leedahay gobolka Saaxil aan hortiisa lagu qaybsanin ee uu qaybteeda u soo dhiciyo haddii jeeraale xildhibaanka xubinka golaha baarlamaanku waa muhiimad weyn gobol ahaan iyo degmo ahaanba marka ay noqoto awoodda ama awood qaybsiga qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo ah 3 gole golaha baarlamaanka golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta golaha garsoorka la sharci dejinta waa baarlamaanka golaha garsoorka iyo golaha fulinta xukuumadda iyo labada qale baarlamaanka haddaba baarlamaanku ama golaha wakiiladu waa aqalka ugu sareeya miisaaniyad hadday tahay kabka gobolada hadday tahay waxqabadka gobolada waa nimanka mar walba u gacantooda soo marayo marka dadka reer Saaxil waa muhiim inay ku fara adeegaan xildhibaanka ay ku tuhmayaan waxqabad inay geystaan amaba uu ku metelo gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin oo in badan kan qudbadiisa ka soo jeediyay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba codsiga uu soo gudbinaya waa
ma tahay qof reer saaxila ma tahay muwaadin kaarkiisa haysta ma tahay muwaadin mustaqbal iyo horumar kala doonaya gobolka saaxil haddii ay jawaabtu haa tahay cabdiraxmaan maxamuud yaasin wuxuu ku leeyahay codkan kaaga fadhiyaa astaantiisuna waa tooshku waa iftiin waa mugdi baa lagaga tallaabaa meel kasta oo mugdi kaaga jiro waa tooshku waa waxa ku tusaa mustaqbalka astaantaas waxay ka turjumaysaa mustaqbalka siduu heli doono gobolka reer saaxil meel kasta oo madmadow kaga jiro mustaqbalka reer saaxil inuu tooshka la dabageli doono haddaba bal waxaan soo gudbin doonaa khudbadaha iyo hadalladii ujeediyay kuugu xasaasisanaa oo uu kaga dalbanayo dadka reer saaxil inay codkooda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلاه الشرف تلا مدشن بالعن قروح دبلن صاع عمري قاد بان يدكم هالعلنا أحمد باكور رمي وحيب هيشري وأنا القمر خاتك عيايو قرقار كيب الله حاري يسلب وان كداميانو وأنا نو أروري marka runtiisa way jirtaa baahihi horta wax badan waynu iska daboolay oo imika waa taa aynu riiga qodanay waxaana weeyaan horumar ninka riiga ragga riiga qoday hawsha halka tayaag biya ka shubunba bridge-na ka taagi karaya marka horta nagu qiimeeyo waxa nagu qiimeysaan anagu iska maanaan imanoo maanaan odhanin maalinta doorashada uun deenin iska yimi waxaanu istiri bal horta dadka ka mid ahaado wax tara marka hore oo bulshadiina ku tirsanaada marka inta la soo dhaafo ayaa dee haddana odhan kartaa war si aan uga sii kordhiyo balaan madasheedii tagno madashu marka waxa weeyaan laba madalood oo mid waynu difaacanaynaa oo awalba waynu haynay laakiin de kursigoodii baa laga qaaday ay ku fadhiyeen waa ceeb weeye mid aynaan waligeen gaadhina waynu baadi goobayna oo de dayaxa inaga dayaxa la tagay buu inoo yahay kursiga baarlamaanku de dayaxa inaynu gaadhnaa meesha ku jirtaa maxaynu ku tagaynaa haddaba dardar iyo dadaal ayaynu ku tagaynaa iyo in inan kastaaba dhexda xidhato qolada dacruur baan u sheegan ku yiri raggu dhexda ma xidhaan habluhum baa xidha waa runo habluhum baa xidha habluhum baana wax soo saara marka waxa sheegay sarkaalkeena sheego wuxuu yiri dumarka iyo dhalinyarada wax soo saara waa runtiisa raaliha raggu cududa ugu ballaaran ee wax tartay ama wax codaysa ama ficil muujisa ama dhexda xidhata ama socota waa idinka waxa la idinka doonayaa hadda inaad dhagax kasta rogtaan codkiina uu la idinkama doonayo waxa la idinka doonayaa qof kasta inuu cod doono oo uu hawl galo ama inaabti ha ka doono ama habar yar ha ka doono ama awow bahawow ha doono maanta waxa la ii sheegay qolo bokor ciiso badbaana laga jiito qoliyo noo bahawowa markaas aasa gacanta la isugu wada jiraaye waa ina idinkuna de gacanta gelisaano inta la inaga qaadanayo idinkuna de marka dadaal baa inaga doonayaa waa mahadsantihiin de dadka sidaas u shaqeynaya sidaa u abaabulanayo wax badan oo dardaarana la idin oran maayo laakiin waxa yaala uun isdardargelin iyo xusuusin iyo in la isu mahadnaqo la yiraahdo waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba sidaas aanay noo ballana isbedelkana wuxuu baa samayn kartaa inta 31 May ka horeysa ama baadi doon tag ama adigu isdiiwaan geli maalinta cod ku dhaco haduu ninkaad wadatay hal cod ku hadhade waa ceeb waxa laga yaabaa inaad tiraahdo wallahi kaana abtiyaashay ka keeni kari lahaa marka hawl baa inoo taala intuu qofku isbedelka samayn karo isbedelka ha sameeyo hadii kale de waa ceeb ba ayinba marka aad baan idin salaam وهس لو ترقلي مشرح ترتميا بوسك حلبان نمو عبد الرحمن محمود ياسين الرياضي أبوان بري مهد حسن لحكي عبد الخالق ماندوي موسيقي عدكي معانا عبد القهار الكعسي
dadaaliyo waa dareen dadkiisa ninkii rabaa dalkiisuna doonaya daryeelnimo fiican baa dushiisa ku duugano daryeelnimo fiican baa dushiisa ku duugane cabdiraxmaan maxamuud dushiisa ku duugane dadaaliyo waa dareen dadkiisa ninkii rabaa dalkiisuna doonaya daryeelnimo fiican baa dushiisa ku duugano daryeelnimo fiican baa dushiisa ku duugane cabdiraxmaan maxamuud dushiisa ku duugane mana daweeyo biyo la'aan harraadkii dabarjarye miyay cidi diidaysaa cabdaa mudan daacadeeye codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar mana daweeyo biyo la'aan harraadkii dabarjarye miyay cidi diidaysaa cabdaa mudan daacadee codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar codkiisuna waa diyaar loo doortayo sidii dayuxuu cad yahay abaalaan dami karayn dadkiisa ninkii gashaday ayaa darajada hele cabdaa mudan daacadee miyay cidi diidaysaa miyay cidi diidaysaa cabdaa mudan daacadee miyay cidi diidaysaa loo doortayo sidii dayuxuu cad yahay abaalaan dami karayn dadkiisa ninkii gashaday ayaa darajada hele cabdaa mudan daacadee miyay cidi diidaysaa miyay cidi diidaysaa cabdaa mudan daacadee miyay cidi diidaysaa ku doorta guul aqoontuna waa